waxaa jirta hal arrin oo muxuu ahaa ilaa 2019 ilaa hadda la joogo TikTok Soomaalida training-ka oo ka socota yani dadku inay garaadkoodu kordho aqoontoodu kordho adduunka la socdaan ay ahayd arrintaas waxa waaye in ay inta calan qabiil la qaato calanada qabiilada mise calanada maamul goboleedyada kadib laamida dhexdeeda la istaago la isku soo sawiro heesa la iskaga soo duubo la isugu faano yani waxaas oo kale in laga koro dadku ka weynaadaan oo muxuu ahaa kor loo baxay ahayd yani adduunka la socdo adduunka hadda isbedelo waaweyn oo dhinac kasta ka socdo inii muxuu ahaa inagina aan ku mashquulo calan la isku soo sawiro laamida la soo dhex istaago ilaa iyo hadda oo 2025 lagu jiro wallahi waxan waa yani waxay cadeynaysaa garaadka iyo muxuu ahaa waaqica dadka yani hadii baad calan isku soo sawirayso calan hadii baad isku soo sawirayso calanka buluuga ha noqdo yani sababtoo calankaas waa calaamad guud ee dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogto hadii aad tiraahdo Soomaali calanka lagu garanayo kaas waa yani kaas waa calaamada oo dadka ka wada dhaxaysa inaad calan isku soo sawirto marka horeba inaad calan isku soo sawirto calan aad muuqaal iskaga soo duub taas waxay tahay kolka horeba yani wax laga fiican yahay maalmaha national team ay ciyaarayaan maalmaha xorriyada oo kala caadi waa adduunka waa kala simanaa waa la isku sawiri karaa laakiin inaad calan isku sawirtaa marka horeba ayna wax fiican ahayn yani maalmaha marka laga reebo yani adduunka ma arkaysid qof calan bila macna isku soo duubaya yani marka arrimahaas oo kale ha laga koro ha laga weynaado adduunka la socdo dhalinyaro salaam